جئت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. شيخ عبد الحليم جزاك الله خير وما صنت هذه تيم كاغا. إلهي waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala marka hore inuu naaziladan iyo jaa-ixadan ilaahay inuu tabaaraka wa tacaala oo dad ka dulqaado jaanisna noo siiyo inaan ramadaan masaajidii noo furmaan si degdegana ilaahay tabaaraka wa tacaala aafadan uu nooga faydo. intaa kadib shaki ma laha waxyaalaha ay jaa-ixadani saameynta weyn ku yeelanayso waxaa ka mid ah ramadaankii iyo soonkiisii iyo cibaadaadkii ramadaanka la sameyn jiray dhammaantood. marka masaa'il fara badan oo u baahan baa jirta in la caddeeyo maadaama sidii hore dadku u sameyn jireen ayna hadda suurtagal ahayn si kaloo badiil ahoo loo sameyn karo ma jirtaa. marka hore horta soonku ilaahay kitaabkiisa qur-aanka wuu ku faray ummadda yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam ila aakhiri ilaaya. nabiguna sal alla alay wasalam wuxuu ka dhigay tiirka afaraad oo 6 tiir ee islaamnimadu ku taagan tahay midkiisa afraad buu ku tiriyay nabigu sal alla alay wasalam. marka maadaama uu tiirarkii 5 ka mid yahay intaasi way ku filan tahay oo nabigu sal alla alay wasalam meel runtii adag buu runtii geeyey. ummaduna walilaahi alxamdu taariikhdeeda dheer waxay ka mid tahay acmaasha mutawaatirka camaliga ah oo ay kala dhaxashay cibaadadaas sida salaada oo kale iyo sakada iyo in lala yimaado. marka soonku waa ahmiyadiisu tiir waay tiirarka waaweyn ka mid